ciyaar aan inaba caadi ahayn ayay soo bandhigayaan dhalinyarada idin muuqanaysa waxaana marti ku ahaa xafladii sanad guuradii 15aad ee aasaaskii dowlad goboleedka Galmudug oo xalay lagu qabtay dalka Jarmalka YouTuberka weyn CK oo Jarmalka u yimid in dhalinyarada la qaato habeen qurux badan meesha waxaan ka barnayn fanaankeena dalka Jarmalka asad qarni oo asagana halka ku soo bandhigaya heesa aan caadi ahayn Jarmalka waxa ka dhacay sida idin muuqataba xafladii 14 Agoosto oo ah maalin qiimo weyn u fadhiisa shacabweynaha Galmudug meel walba ay joogaan toddobaadkan oo dhan ayaa waxa loo dabaaldagayaa farxadda maalmaha aynu ku guda jirno oo ah maalmo ay ku weyn tahay dhammaan shacabka deegaanada ka soo jeeda xalay ilaa iyo caawana waxa soconaya xaflado iyo kulamo maalintan oo kale loogu dabaaldagayo laguna xusaaya hadda waxa ila taagan markaan aan rabaa inaan mikrofoonka ku wareejiyo si kaalintiisa uu idin soo jeediyo gudoomiyaha jaaliyadda dalkan Jarmalka mudane Mahdi Sorow shacabka gaar ahaan kuwa qurbaha ku nool maxaad u jeedin leedo maanta farxad maadaama ay tahay la wadaagaysaa السلام عليكم كوثر aad baad u mahadsan tahay adiga idaacadaada waa soo dhaweynayna unahantii waa sidaad sheegtay aad baan horta u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo caleemasaarkii ama sanad guuradii 15aad ee Galmudug oo lagu qabanayo Germany waxaan u maleynayaa inay markii ugu horeysay tahay waxaan rajaynaynaa in sanadyada soo socda inay ka dhacdo gobol kasto ka mid ah Germany waa sax Kowsaray waxaan jirtaa jaaliyad Galmudug ah oo laga aasaasay Germany marka waa sidaan sheegnay ka jaalidahan maadaama aynu ognahay in dhalinyarada reer Galmudug ay guud ahaan bay ku sugan yihiin dalkan Jarmalka qaybihiisa kala duwan xagga isku xirka iyo isku keentooda kale noocee ayaad ka qaadataa waa su'aal wanaagsan Kowsaray arintaas waa arintan ugu dhalisay inaan jaaliyad aasno markaan aragnay dareenayna kala daadsanaanta dhalinyaradii Galmudug lagana tugtugroon yahay markii loo fiiriyo jaaliyadaha kale ayaan waxaan dhalinyaro ka mid ah dhalinyarada ku nool Germany waxay dareentay inay kaalintaas u bannaan tahay lana doono dadkii maaragta dhalinyaradaasi la iskaashado loona helo cudud maaragta ka xoog badan intaan wax kasto oo kan jiran iyo kan dhiban iyo midka caafimaad qaba iyo kan faraxsanba si isku ogaadaan isku gacan u noqdaan saas darteed ayaan maaragta ku aasnay jaaliyadda Galmudug ee Germany waayahay 14 Agoosto maadaama ay caawa ku sugan tahay xafladii aad ugu talagasheen dhammaan reer Galmudug ee ku sugan dalkan kaalintii kaaga aadaneed waa dardaaran ama fariin si gaar ah aad ugu jeedinaysa ma jirtaa way jirtaa sidaan ku sheegay waan ku faraxsanahay sanad guuradii 15aad ee Galmudug oo ka dhacaysa Germany waxaan kula dardaarmayaa reer Galmudug inay gacanaha isqabsadaan inay noqdaan dad xul ah siday u ahaa jireen wadankii waxay ka yihiin dadka maamulada run ahaantii ugu furfuran uguna dhiifoon halkaana waxaan rajaynaynaa inay ka noqdaan sidaas السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وما سينهاي ونقوم هذا علينا يا بهدي أو دوميها الجالية دالكان جرمالك أو عاوق قاوضة قيب وين كان هاي حفلتنا قرحة بدن أو ريك سعران سجدها حلقة تاجرنا هاي وان فيديو وان كجسوا بيننا داوديال ميرو الباجوكتانا عاوق الله كتلا كله برنامج كان أفريج طبعا كأغسطس أو رجال مدوك يا عاوق هاي ماريو وين جارها كود كنا قربها سجارة دالكان جرمالك أو حفلتنا قاوضة ذي كم إذا هاي نحبنا هذا يدي مقرية markaan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo xogayaha jaaliyadda Galmudug oo asna kamid ah xubnihii ka soo qayb galay xafladan quruxda badan ee wali ka soconaysa gudaha hoolkan soo dhawow waa maasantahay Kowsar si weyn oo maasantahay waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno xafladda Germany aniga iyo jaaliyadda isla socono iyo dhammaan jaaliyadda Galmudug waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa adiga Kowsar iyo fanaaniinta kalaba iyo dadka wariyaha ka soo qayb galay meeshan
waxaan caawa aan sheegnana waa iska hadal yar waayo waxaan joognaa dabaaldegii weynaa ee 14 Agosto wax badan ay soo jiidamatay maanta meeshaan aan taaganaa alxamdulillah jaaliyadana waa u jeedin adigana waa la socotay in badan waya ka xogeen ahaan bal ka waran caawa maadaama ay tahay 14 Agosto shacabweynaha gaar ahaan dhalinyaradii ay madashan ku kulmayaan adi ahaan dareenkaaga ma markii ugu horeysay aad ka soo qayb gasho ama xaflad noocan aad wadankan ku qabataan aan si horay sanad walba sidan ayaad ugu qabataan Kawsar saa ogtahay sanadkii hore horta jaaliyadu way jirtay si gabagaba oo yar iskaga jirtay laakiin corona iyo waxba gacanta nagu hayo oo wax la qaban kara ma lahayn laakiin sanadii koodayay wada dayac fara badan anaga muuqday galmudug ahaan dhalinyarteena laakiin maadaama aan u istaagnay dhalinyarteeni oo aan gacmaha isqabsanay yar iyo weynba maanta waxaan keenay inaan xafladii aan sameeyno sanadkii hore waarnay laakiin waxaan u suurtagali weysay waqtiga iyo waayihii meesha wacyiga jiray macnaha jarmalka jiray oo ahaa corona iyo waxyaabaas laakiin waxaan xoog saarnay oo maalmihii la soo dhaafay iyo bilooyin la soo dhaafay xoog saarnay inaan la dabaaldegno dadka weynii galmudug oo farxadan la sugayay Germany caawa u jeeda ana farxadda lama soo koobo adiga Kawsar inaan ku aragno ku faraxsanahay dadkii intooda badanna jaaliyadii sugayeen oo in la soo dhaweeyo jaaliyad la arko Germany inay ka dhisan tahay gudoomiye leh wax walba leh oo dastuur leh marka aad iyo aad aan u faraxsanahay waxaan dool ku weyn oo idinka xitaa ka qayb qaadanaysiin ka wariye ahaan yani wax la soo koobi kara ma aha meel aan wariye joogin yani wax ma la soo bandhigi kara ma baantay aad iyo aad aan u faraxsanahay adiga Kawsar ahaan waad maadsantihiin waan kaga mahadcelinayaa waana ku faraxsanahay caawa inaan golkan aan idin kula suganahay daawadayaal sida idin muuqatay aad ka bagatay su'aalaha aan idin weydiiyay xubnihii ugu sareeyay jaaliyadda dalka Jarmalka oo caawa qalqaawada qayb weyn ka lahay xafladan hadda ka soconaysa sidoo kale waxa ku sugan dadweyne badan oo saacada ka dambaysa soo gaaraya holkan ee ka dhacaysa xafladan dadku waxay yihiin kuwa ku faraxsan oo waliba saacado badan ku bixinaya imaanshaha meeshan iyagoo ka imaanaya meelo badan oo kamid ah dalkan Jarmalka gaar ahaan gobollo kale dadku waxay yihiin kuwa ay ka muuqato farxadda iyo astaanta calanka galmudug ay ku soo labisanayaan dadka ayaa waxay u muuqanayaan kuwa ay yihiin inay maanta kale uga dhigan tahay maalin ka duwan maalmaha oo kale xafladana waa xaflad lagu weyneynaya 14 Agosto maalintii dhidibada loo taagay maamul goboleedka galmudug oo hadda ka soconaysa dalka Jarmalka waxaan idin soo gudbin doonaa kaalmo suugaaneed fanaaniin oo ku sugan madashan oo iyaga oo haysa isugu jira kuwa madadaalo ah iyo kuwa loogu talagalay dhiirigelinta maamulka galmudug oo halkan ka soo jeedinayaan intaba waa idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena aniga waa Kawsar Cabdiraxmaan Cilmi idinkuna waa daawadayaasheeda waan idinka mahadnaqayaa sida wacan quruxda badan aad muuqaalkan u daawanayso si gaarsii saaxiibada kula sheer gareysay wala socdaan warbixinadan idin soo gudbiya waad maasantiin nabadii warsan aad iyo aad waxaan ku faraxsanahay caawi inaan xafladii weyneed 14 galmudug 14 Agosto inaan caawi dhalinyarada galmudug anaga inaan caawi halkan aad ugu weyneynayno ay joogaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhalinyaro waxgarad qaal gabdhihii sharafta badnaa hooyooyinkii dhalinyarada ilmihii dhammaan in halka ku dhan yihiin waxaa farxadda nagala qayb qaadanay aad aan ku faraxsanahay si wanaagsan oo qurux badan oo aad iyo aad loo jeclaystay insha Allah nagu dhacday waan ku faraxsanahay dhammaan shacabka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan shacabka galmudug waxaan ugu hambalyeeyaa hambalyo qaas ugu diraya hambalyo sanad guuro wacan sanad guuradeeda ilaahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan shacabka weynaha galmudug farxad ilaahay nagu gaarsiiyo waan ku faraxsanahay inaan meeshaas ugu nimaano oo joogaan qurux badan farxad wada qaadano gaar ahaan shacabka galmudug iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waan soo dhaweynayaa oo ku mahadsantahay walaashay Kawsar oo aad iyo aad xafladan quruxda badan oo ka qayb qaadanaysa oo barnaamijka aad iyo aad mataqaana u wada waan soo dhaweynaynaa soo dhawo kunjeer waan ku faraxsanahay inaan meesha kala soo qayb qaadano waa maasantahay sanad guuro wacan 15 sanad guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay goboleedka galmudug dambal iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed السلام عليكم وعليكم يا مقعي وصدحان أسد محمد عوالة ومقعي جمع صدق وعن هالكان وهم قليين يا 14 أغسطس درسكي حلاشة
galmudug hambaliyo meel kasta ay joogaan luqaal odayaal nabadoono dhalinyaro rag haween iyo hooyooyinba inta waxaan la inta maqalkayga muuqaalkayga taqaan baliyo hambaliyo 14 agoosto oo ka dhacaysa magaalada Jarmalka gaar ahaan Amsterdam daawade markan waxaan idin soo qabanayaa dad isku jiraan liibaan wehliye soo dhawow bandhowaay xafladii caawa aad ka qayb gashay oo calanka galmudug aad weli wadataa astaantii baa kaa muuqanaysa waa 15 saguuradii ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay dowlad goboleedka galmudug bal ka waran sidee u aragtaa wallahi aad baan soo dhaweynaa waa markii noogu horeysay yurub lagu qabto xafladda mid la mid ah dhicin sanadii aan seenay xigtay midna aad baan ugu hambalyeynaya sanad guuro wacan reer galmudug dhammaantood meel kasta ay joogaan dumar iyo rag gudiya xildhibaan kulligood aad baan ugu hambalyeynaya iyo shacabka galmudug meel kasta ay joogaan sanad guuro wacan waad mahadsan tahay liibaan ka qaybgalayaasha aad bay u badan yihiin daawade markaan waxaan rabaa maxamed deeq mare soo dhawow وعليكم السلام kusoo dhawow janaalkayga mire bal ka waran dhalinyaradan oo waliba waqti dambe gaaray xaflad waqti saacado badan soconaysa oo 15 sano guuradii galmudug looga dabaaldegayo aad ka qayb gashay dareenkaaga iyo sida aragtay inta ما شاء الله horta koosar aad iyo aad u maasantaa waan ku dhawaad janaalkaaga ما شاء الله xafladan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa xaflada galmudug aan ka soo qayb galo ما شاء الله waa xaflada caawa aad iyo aad u kala kacsaneed teeda kale waxa waay ما شاء الله bulsho badan isku imaaday jarmal meel aan laga imaanin ma jirto ما شاء الله caawa waxay noo tahay habeen farxadeed lama soo koobi karo farxadeen maxamed deeq mare waad maasan tahay waa kaaga mahadnaqayaa daawadayaal waxaa soo taraya dadka soo gaaraya gudaha koolkan oo loogu talagalay in markaa loogu dabaaldego sanad guuradii 15aad ee ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay dowlad goboleedka galmudug xafladan waxaa xiisaha u sii yeelaya oo ka soo qayb galay fanaaniin oo iyaga kaalmo suugaaneed oo kala duwan soo bandhigaya kuwa lagu taageeraya madaxda maamul goboleedka iyo waliba kuwa kala wadaniga iyo kuwa jecel oo dhalinyaradu ay dalbanayaan شعر الرق الماي on العبي الماي labadii warsan daawadayaal wali waxa ku guda jirnay barnaamijyadii aan idin soo gudbinaynay oo ku talagalnay caawa xafladii quruxda badneed ee dalka Jarmalka lagu qabtay taasoo ay ku asteesneed 14 Agoosto maalinta galmudug dhidibada loo taagay oo adduunka laga xusay gaar ahaan maalmihii ugu dambeysay waxaa soo taraya xafladaha shacabka reer galmudug ay ku qabanayaan guud ahaan caalamka meel walba ay ka sugan hadda wali waxaa soconaysa saacadan ay la hadlaya xaflad loogu talagalay weynaynta maalinka xubnihii ugu sarsareeyay xafladda ka soo qayb galay gaar ahaan rugcadaas xaafadeed mar haddaad muuqiisada aragteen Mustafa Xaaji Aadan oo igula sugan halkan ayaan caawa rabaa inaan weydiiyo sida ay ula muuqato xafladii halkan ka dhacday oo dhalinyaradu waliba duqooshinka iyo way aragnada dadka dhabta isku soo qayb galeen oo loogu talagalay in lagu weyneeyo isla markaana ay isku arkaan shacabka reer galmudug Mustafa soo dhawow musharax mustaqbalka madaxweynenimo ee dalkeena Soomaaliya marka musharaxna waa tahay xildhibaan waxa waaye soo socdana waa tahay bila shaqal kulli aad iyo aad marka wariyad weynna waa tahay annaga waxa waaye dadka ka xoogsanayanahay marka rugcadayaasha macallimiinta la joogna waa inaan uga dambeynaa mikrofon bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad bay sharaf iigu tahay walaashay Kawsar oo doqoladiina bedeshaya yani kuwa yagii hore juniorka aad bay sharaf iigu tahay waa markii koobaad ee aan galmudug imaado caawa waxaan dareemayaa shucuurtaydu ma dareemi karto dhiig biyo maaha dhiig biyo maaha waxaa weeye sanad guradii 15aad 2006 bishii 8aad 14keedii ayaa lagu dhawaaqay dowlad goboleedka aanu maamul goboleed ormaaye dowlad goboleedka galmudug state lix madaxweyne imika Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor la janaanaad u taageero horta waxay isugu timi caawa dhammaan bulshadii Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaa gobolkii Raga jooga waxaan leeyahay reer galmudug hambaliyo sanad guuro wanaagsan xawaara ku socotaan halku dhigan waa dhiig biyo ma aad walaashay Kawsarna waxa la keep going waad maasan tahay Mustafa bal ka dhalinyaro ahaan
kuwa qurbaha ku nool markaad fiiriso isku xirnaan ahaan iyo wax soo saar ahaan sidee kula muuqdaan tan oo kale ka arkaysaa Soomaaliya oo waliba joogto Djibouti ilaa iyo Gaarisa halka baan isku salaamaynay sidee wax amiranta wad dareemi kartaa intii caabuqa corona laga soo noqday waa xafladii ugu ballaadhnayd ee guud ahaan la isugu yimaada qaaradda Yurub oo dhan Legends baa ka soo qayb galay Kingsiga iyo bulshada ay aad u taageertaa joogay Jamiil Weheliye Asad Qarni صحفيين guud ahaan Yurub oo dhan aan ka sida Kawsar Yare baan leeyahay wallahi lama isku xirka bulshadu haddii sida lagu sii wado guul baa lagu gaaray waad maasan tahay Mustafa wacdaa saxaafadeed aqoonyahan marka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mid ka mid ah dhalinyarada ee caawa ka soo qayb galay xafladan oo isagana kaalintiisa iyo hadal jeedinta uu ugu talagalay caawa oo kale idin la wadaagaya soo dhaw waan dhawahay Kawsar Cabdiraxmaan akan waxaan baliyo u dirayaa ummadda Soomaaliyeed dhamaantood meel kasta ay joogaan qaasatan ummadda reer Galmudug hambaliyo sanad guuro wacan hore u socdo caawana calankii baad gacanta ku wadataa dareenkeeda aad u kacsan yahay laba koobi karo sanad guuradii 15aad ka soo qayb galaysa waaye bal ka waran horay ma uga qayb gashay xafladahan oo kale waa mid ugu horeysay Yurub aan uga qayb galo ya waa ku maadicnaa adiga mudan Kawsar waad maasan tahay daawade muuqaaladan idin soo gudbinaya dhamaantooda waxay ku salaysan yihiin xafladii caawa ee hadda ka soconaysa gudaha hoolkan oo ugu talagalnay in marka ay soo gudbino shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan weli waxaa jira dhalinyaro kale oo fara badan oo dumar iyo rag isugu jira kuwa oo iyaguna maanta ay uga dhigan tahay maalin qiimo weyn Xasan ayaa soo dhaweynaya Xasan waa cameraman waa legend waa Redan Mishad ninkaas si fiican bay u yaqaanaan caawa wuxuu ahaa cameramanka muuqaalada MJ soo dhawow cameraman waa idinyo waa dad legend ah oo dadka lagu tilta xafladaha bal ka waran xaflada caawa aad soo qayb gasheen sidee yahay MJ aan goor bilaawo aye السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان والسلام يا TV قدامني دمان والله هذا هو فرح صنع حفلة عاوة عادي بوش انتهي كل وعكسوا قيب شيء قياس هان هذا لو بقول وقف عادي هذا هو فرح صنع عدسة كبنين عدد سان قياس ما فهمت مركا وكا ويا ما صنتها MJ حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته TV والسلام يا عاو ما تقنا ماشي كاميرمان كاهي والله هرت ميلشدو ما شاء الله كل waxaan leeyahay Soomaalida Jarmalka joogto meel walba imaadaan sida ay si kadar washada asxaab insha Allah waayay waad ma santahay oo ku maadicineena Xasan markan waxaan rabaa Cabdilcasiis Xaashi Cabdilcasiis soo dhawow habeen wanaagsan sanad guuradii 15aad ee Galmudug oo caawa ka soo qayb gashay kaalintaada sida oo aragta dadweynaha kale ee nasiibkan u yeelay inay ka soo qayb galaan laakiin muuqaalkeena daawanaya maxaad leeyahay ma sha Allah runtii Kawsar aad baan ku salaamayaa runtii waan ku faraxsanahay inay iga qaado waraysigan ma sha Allah absolutely lama soo koobi karo dareenkayga runtii shucuurta aan meeshan kala kulmay baaxadda ay lahayd kama filayn xalfad noocan oo kale inaan ku arkay Jarmal runtii waa markii ugu horeysay oo aan ka qayb galo bandhig xalfadeed ay leedahay Galmudug sanad guuradii 15aad absolutely aad iyo aad caawi dhiirigelisay weliba ma aanan ahayn aniga inta badan dadka xalfadaha imaado laakiin maadaama Galmudug ay qayb ka mid ah jirkayga tahay sidaas darteed waxaan caaw isku soo dayay inaan ka soo qayb galo laakiin absolutely meeshan waxa meesha ka dhacay waxay ahayn wax fantastic ah waad baasantahay Cabdilcasiis Xaashi waa ku mahadnaqaya Cabdilcasiis daawaday wuxuu ka mid ahaa soo qaybgalayaashii xafladda caawa ee loogu talagalay in marka loogu dabaaldego sanad guuradii 15aad ee asaaska dowlad goboleedka Galmudug waad baasantahay insha Allah daawaday waxaan jeclahay inaad ka faa'iideysateen oo aan idin soo gudbiyay muuqaaladii aan uga dabaaldegaynay caawa 15 guuradii ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay dowlad goboleedka Galmudug waxaan halkaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii yaraa aan idinkaga soo diyaariyay shacabkii ka soo qayb galay xafladda Kawsar Cabdiraxmaan Cilmi Kawsar Media oo aad ka daawanaysaan page-keeda nabad iyo warsan amaan Allah